casuumadan annaga oo ah reer Kayaasu la yiraahdo ayaanu idin qabanay waxaanu idinku qabanay dantayadii siyaasadeed markaanu ka weynay kulmiye waxaanu isniri waxa idinku wanaagsan oo dantiinu ka muuqatay ta qarankuba xisbiga wadani sidaasi maanta waxa weeyaan musharaxiin anagu baryaanba soo xuleynay sidaan xisbiga u keeni lahayn maanta halkan hortiina u keeni lahayn baanu ku soconaa taasina waxa maanta ballanqaad naga ah oo aanu soo xulay nin xisbigana u ay doono tolkuna u ay doono reerka wataana u ay doono oo maasha Allah inta waxaan ku darayaa waxaan maanta aad u sii jeclaaday intaan fadhiyo kaliya protocolkiina sababtoo nin baa kicisay inaan duceeyo ka kac ninkii baan eegay iyo beeshu ka soo jeedo alxamdulillah waa iiko xusbi sidaa wuxuu xulaa sidaa ay uqaashu sheegtay waxa weeyaan xusbiga annaga casuunay annaga oo yeedhnay annaga dooranay inaanu xusbiga ku biirno haddii ilaahay yidhaahdo sida xilku kolley waxaan filayaa inta xilku waa meerto Somaliland xilkeedu waa meerto maanta hadduu kala hore waaye maantaas xusbiga wadani baa maanta dee meertada u leh isagaana leh dadkuna isagay taageerayaan maanta waxa weeyaan annaguna waxaan wadnaa nin karti leh oo xildhibaana oo ka qayb geli kara kartideeda leh inuu xusbiga iyo dadka iyo ummadda iyo dalkaba isku xidho imikana waxaanu doonaynaa ninka aanu idin keenay raggii hore uu idin sheegay yaanu xusbiga yaanu keenay waxaanu xusbiga kala hadhaynaana ma jiro 9 baan jiray walkii Cabdi Waraabe wala daadeedu maanta waa 9 ko waa mikrofoonka igu horeeyay annagu maanta markaanu kala hufnay eenu kala haadinay saddexda xisbi qaran eenu mid walba eegnay ilaa inta nin walba markuu hadlayo waxba la qoraa taariikhduna waa lama ilaawaan waxay nala noqotay xildhibaanka iyaga halka aanu la tegayno ee uu waxna ka qaban karo waxna ka gudi karo inay tahay xisbiga wadani madaxdu inay qaabilaada iyo maamul ahaan inay sidaa ay noo soo ajiibeen eenu u deewaan gashanahay inay meel fiican oo deewaan gelinta aanu ugu horeynay ayaanu idinkana idinka codsanayna dawadayaashii horeeyay hadalka dhameeyay wax kale ay ku tarimaayo dee salaantaas baan kaga baxaya runtii dawar faano ujeedada oo waxa casuumadan ay tahay shaacinta inay u socdaan xildhibaanka beesha Yaasuf waxaan ka marakacayaa oo aan marxaati ka ahay Farxaan Muuse Iimaan shakhsiyadiisa xusbiga sida u sheegteen si ka sii wacan oo ka sii gudan dheer oo ka sii xeel dheer baan ayaan u naqaanaa idinla waa sheegteen oo waa aaminsanteen oo waraysigeennii baa socdiyay horta xusbigu waa kaa مفتاح الخير إن شاء الله يضمن طنطا مفتاح الخير بإذن الله تعالى واحد نقول طنطا مفتاح الخير أول بند دولية ضد صالحين يدد ونكسنية ضد علماء أنت بواضح هيدي مركا وحن إلهي كبر إيه إن نقطان حسبك مفتاح الخير waxaan soo dhaweynayaa reerkan waxa weeye Yaasif Isaaq ama Yaasif Isaaq reerka waa soo dhaweynaynaa waliba sida milgaha iyo maamuuska leh reer uqaashiisii iyo odayaashiisii iyo culimadiisii ay marayaan oo aan waliba iska daba marka waxaanu rajaynaynaa insha Allah taala xisbiga inay qayb ka noqotaan oo hoggaan u noqotaan fadhigankii ka ku xigana inaynu balacabanay isugu nimaad si carabka loogu dhuftay inaynu balacabanay bartiini isugu nimaadno waa idinla gudoonsanay Farxaan Muuse Iimaan waa idinla gudoonsanay taageeradiina waa idinku soo dhaweynaynaa aad iyo aad bay aniga kulli farxad gelisay inaan reerkan maanta halkan ku barto akhyaartiisii waana soo dhaweynaynaa waana idinku gudoonay gudida anaa ka madaxa
waa ninkii u horreeyay la guddoonnay reeraha ummadda ee musharaxiinta waxaa dhibtu tahay markaan wax sharaxanana waxaan soo sharaxnaa dadan in u qalmin waxa aan u diranano markay fadhiistaanna waan ogeynaa waxaan rajaynaynaa in lagu daydo oo la soo qabto oo Soomaaliland sanadka la soo sharaxo dad u qalma oo hawshaan u diranano inoo fuliya tartan badan oo reer ahaan aanu galnay odayaashayda cuqaasha iyo salaadiinta iyo siyaasiyiintuba ay ka mid yihiin ee ii gartay maanta anigu inaan isu taago golaha baarlamaanka doorashada soo socota oo ay iga sharaxaan oo ay ii garteen mar kale inaan ka mid noqdo xildhibaanada ka diiwaan gashan ee ka soo bixi doona haddii Ilaahay yiraahdo xisbiga wadani runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu ajiibno oo ka soo qayb galno martiqaadkan aan noo fadhiisteen xisbi ahaan anigoo ku hadlaya magaca xisbiga waxaanu idinka guddoonnay musharaxa golaha wakiilada ee beesha soo xushay Somaliland waxay ku dhismaysaa axsaabtuna ku dhismayaan innagoo qabyaalada ka guura ma odhan karo maalin baa laga guuraya laakiin idinku maanta waxaad jebiseen gidaarkii koowaad ee qabyaaladda